Bismillahirrahmanirrahim waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo ay xiliyadan oo kale aad ka daawataan Naafic Show qodobada ugu waaweyn maanta waxaa kamid ah Trump ayaa u muuqda in uu ka quustay isku daygii uu ku raadinayay wadaxaajood uu la galo Putin in lagu joojin karo dagaalka Ukraine hogaamiyaha Jarmalka Friedrich ayaa lagu waramayaa in uu ku dhawaaday inuu gacanta u qaado ra'iisul wasaaraha Hungary qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijkeena saaxiibayaal mar kale soo dhawaada marka hore dhageystayaasheena daawadayaasheena waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka noo share gareeyaan sidaas oo kale subscribe inoo dhahan mahadsanidin dhammaantiin aynu ka hormarno Trump ayaa u muuqda inuu ka qoostay isku daygii uu ku raadinayay wadaxaajood uu la galo Putin in lagu joojin karo dagaalka Ukraine taa beddelkeeda Mareykanka ayaa hadda door dhameystiran ka qaadanaya weerarka ay ciidanka Ukraine ku beegsanayaan xarumaha tamarta ee shidaalka ee ku yaala gudaha Ruushka waxaana hadda Mareykanka uu la wadaagaya Ukraine xog sirdoon oo loogu taageerayo weerarada gantaalada ridada dheer ee lagu garaacayo saldhigyada tamarta ee gudaha Ruushka taa oo markii ugu horeysay ee maamulka Trump uu ogolaaday taageero noocan ah sida uu wariyay wargeyska Wall Street Journal waxa kale oo uu Trump u soo jeediyay xulafada NATO inay si toos ah ugu lug yeeshaan weerarada ay qaadayso Ukraine iyada oo lagu beegsanayo warshadaha sifaynta shidaalka dhuumaha shidaalka iyo xarumaha korontada tan oo suuragal ka dhigayso in isbedel laga arko dagaalka Ukraine xilli shalay ciidanka badda ee Faransiiska ay weerareen markab shidaal oo uu Ruushka leeyahay isla warbixintan ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo qorshe uu Ukraine ugu wareejinayo gantaalo oo gaari kara masaafo dhan 2400 oo kiiloomitir haddii aynu si hoose u sii faaqidno shidaalka waa waxa kaliya ee uu hadda ku tiirsan yahay dhaqaalaha Ruushka mana uu adkeysan karo Ruushka in uu daawado warshadihiisa oo la burburinayo taa oo suuragal ka dhigaysa in Ruushka uu qaado weeraro uu ku xanuujinayo Ukraine iyo xulufadeeda doorka Mareykanka ee hadda dagaalkan uu ku xoojinayo ayaa lagu sharaxi karaa mid lagu raadinayo cadaadis lagu bedelayo mowqifka Putin si loo helo wadaxaajood hogaamiyaha Jarmalka Friedrich ayaa lagu waramayaa inuu ku dhawaaday inuu gacantiisa u qaado ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban kuwaas oo dood adag ay ku dhex martay kulanka hogaamiyayaasha Yurub ugu socda maanta magaalada Copenhagen oo lagu hadlayay arrimaha difaaca oo ay ku jirto Ukraine Viktor Orban ayaa maanta u dhaqmay sida qof matalaya Ruushka wuxuuna codka qayaxan ku diiday cunaqabataynta Yurub ee la saarayo Ruushka halka si cad ugu soo horjeestay hindisa kasta oo suuragal ka dhigaya Ukraine inay ku biirto midowga Yurub talaabadan waxa ay ka careysiisay hogaamiyayaasha kale ee Yurub ilaa hogaamiyaha Jarmalka uu istaagay si gacantiisa ugu qaado Orban sida ay walisay wakaalada Bloomberg